waxaan rabaa arrinta farmaajo inaan wax yar ka yidhaa maxaa yeelay Soomaalidu mararka qaar waxa waa shakhsiyeeyaan horta farmaajo adinka ma aqaanin anaa keenay runta rabana aan isku sheegno farmaajo dalka markuu imaanayay xoolana ma wadan istaraatiijiyana ma wadan ciidanna ma wadan dhaqaalana ma sidan waxoo dhan waa la qorsheeyay waa la diyaariyay waa la shaqeynayay khilaaf waxaa dhashay xukuumadii iyo baarlamaankii waa xalin weyne waa khiyaar gelina farmaajo waxaan dhahnay halkaas taaganta baash hadaa ku qanacsanta inaad tanaazushid oo dawladda Soomaaliyeed ay sii socotana waa wax raganimo leh hadaadan ku qanacsaneen xal kale aan ka fikireyna wuxuu ku qanacsana sidaas oo ku tag marka ninka ragga waxa la rabaa marka uu joogo oo codkiisa uu u furan yahay inuu yiraahdo waxaan waa ku qanacsanahay iyo kuma qanacsanay Soomaalidan waxa laga rabaa annaga dalkii waa ugu yaraan yani dawladii aan mathalaynahay madax u nahay dadka waxaan u bandhigaynaa wixii xal naga kara ma aha nin jecel inaan ka fikireyna waxaan ka fikireyna maxaa wax ku socon karaan haddana dawladii waa socotaa ma waxa fiicnaa lahayd dawladdu khilaafkaas inay u burburto mase waxa fiicnaa lahayd inay wax sii socdaan halka sano raaliga ahda halka sano sababta ugu dhignay istaraatiijiyada waxay ahayd istaraatiijiye amni iyo mid siyaasadeed waxaan arkaynay fursad inay jirto dalka lagu xoreey karo al-shabaab waxaan arkaynay in loo baahan yahay fursad lagu diyaariyo xilliga kala guurka وانا موقتها هذا قف كستو عقل له Soomaali halka san in loo baahnaa waa garan kara hada farmaajo hadii qabiilkiisu yima keenin wax yar hal qabiil yima keenin hadaa u maleynaysan xataa saaxiiba inay keenan saaxiiba yima keenin kaliya waxaan ka fiiriyay waa la sheekaystay nin la arkaba waxaan la sameeyay interview waa ay qanciyay waana la shaqeeyay gacanasi waa wax raganimo leh hadaadan ku qanacsaneen xal kale aan ka fikireyna wuxuu ku qanacsana sidaas oo ku tag marka ninka ragga waxa la rabaa marka uu joogo oo codkiisa uu u furan yahay inuu yiraahdo waxaan waa ku qanacsanahay iyo kuma qanacsanay Soomaalidan waxa laga rabaa annaga dalkii waa ugu yaraan yani dawladii aan mathalaynahay madax u nahay dadka waxaan u bandhigaynaa wixii xal naga kara ma aha nin jecel inaan ka fikireyna waxaan ka fikireyna maxaa wax ku socon karaan haddana dawladii waa socotaa ma waxa fiicnaa lahayd dawladdu khilaafkaas inay u burburto mase waxa fiicnaa lahayd inay wax sii socdaan halka sano raaliga ahda halka sano sababta ugu dhignay istaraatiijiyada waxay ahayd istaraatiijiye amni iyo mid siyaasadeed waxaan arkaynay fursad inay jirto dalka lagu xoreey karo al-shabaab waxaan arkaynay in loo baahan yahay fursad lagu diyaariyo xilliga kala guurka waana muuqata ciidanna ma wadan dhaqaalana ma sidan waxoo dhan waa la qorsheeyay waa la diyaariyay waa la shaqeynayay khilaaf waxaa dhashay xukuumadii iyo baarlamaankii waa xalin weyne waa khiyaar gelina farmaajo waxaan dhahnay halkaas taaganta baash hadaa ku qanacsanta inaad tanaazushid oo dawladda Soomaaliyeed ay sii socotana waxaan rabaa arrinta farmaajo inaan wax yar ka yidhaa maxaa yeelay Soomaalidu mararka qaar waxa waa shakhsiyeeyaan horta farmaajo adinka ma aqaanin anaa keenay runta rabana aan isku sheegno farmaajo dalka markuu imaanayay xoolana ma wadan istaraatiijiyana ma wadan